5G technology micnaheedu waa tiknoolajiyada jiilka shanaad. Waagii hore markuu telefoonku soo baxay waxaa la isticmaalay 2G iyo 3G. Marka website la booqdana internetka aad ayuu daciif u ahaa, suuragal ma ahayn in si toos wax looga daawado. balse horumarka casriga ee tiknoolajiyada kadib waxaa la helay 4G oo ah tiknoolajiyada internetka maanta aan isticmaalno. xawaaraha 4G-gu waa uu ka duwan yahay tiknoolajiyadii 3G-ga iyo 2G-ga. si kastoo ay ahaatee 4G-gu ma gaarsiisana heerka la doonaya ee ah in second-kiiba ama xitaa millisecond in lagu gudbiyo macluumaadka la doonayay. maanta qofka marka uu doonayay in internetka uu ka soo dejiyo muuqaal HD ah, si kastoo xawaaraha qofka halka uu jooga ay ugu xiran tahay ugu badnaan 1 GB, waxa uu ku soo degaa muddo 8 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo ah. tanina waa xilli aad u dheer marka loo fiiriyo tiknoolajiyada cusub ee 5G-ga. 5G-gu waa tiknoolaji xawaaraheedu aad u dheerayo, millisecond gudaheeda ayaa wax walba information la isugu gudbin karaa. waana sababta loo qorsheynayo in tiknoolajiyadan cusub marka ay soo ifbaxda baabuurta la wado iyaga oo bani'aadam aanan saarnayn. taraafikada baabuurtu waxay noqon doontaa kuwo otomaatig ah. waxaa si sahal ah oo fudud isla waqtiga la soo qaban doonaa tuugada, guriyaasha iyo wadooyinka, iyo meel walba waxaa ka howlgeli doona raboodyo qaas ah. shirkadaha iyo warshadaha wax soo saarkooda oo dhanna waxaa la wareegi doonaa raboodyo qaas ah. waxaa aad u soo yaraan doona khasaaraha iyo shilalka bani'aadamka. tani sababteeduna waa in tiknoolajiyadani 5G-gu ay isku xiraysa makiinadaha si isku waqti oo borograam ah. tiknoolajiyada maanta ee 4G-ga sababta ugu weyn ee horumarkani aanan loogu samayn karin waa inay aad u soo daahdo. balse mar haddii makiinadaha iyo bani'aadamku ay wada yeeshaan xiriir millisecond gudaheeda ah sida inay isla joogaan oo kale, waxaa dunida ka dhici doona isbeddel taariikhi ah oo horay aanan loo arag. dhaqaatiirta waxaa u fududaan doonta in qaliinka ay sameeyaan si fudud oo dhib la'aan ah. dadku waxay awoodi doonaan iyagoo aanan meel tegin in hawada isku wada imaadaan. xitaa ciyaaraha geemka waxaa loo ciyaari doonaa qaabkan. qofka markuu ookiyaalka uu xirto waxa uu la jaan qaadayaa dunida qarsoon ee khiyaaliga ah. waxaad moodaa qofka inuu ku dhex sugan yahay dunida khiyaaliga. si kooban, tiknoolajiyadani faa'iidooyinkeeda kuma koobna xawaaraha internetka oo kordha oo keliya, waxaa sidoo kale ay leedahay faa'iidooyin xagga nolosha ah. shiinuhu waxa uu bilaabay inuu dhiso wadooyin u qaas ah baabuurta bani'aadamka uusan wadin, waxaana lagu tijaabin doonaa wadooyinkani tiknoolajiyadani 5G-ga. dowladaha hadda sida tooska u bilaabay isticmaalka tiknoolajiyadani 5G-ga waxaa tusaale u ah Koonfur Kuuriya. si kastoo tiknoolajiyadan ay ugu muuqato mid nolosha bani'aadamka aad u fududaynaysa, waxaa sidoo kale ay wadataa probleemyo waaweyn ee xagga caafimaadka ah. khubarada cilmigu waxay aad uga walaacsan yihiin dhibaatooyinka caafimaad ee tiknoolajiyadani ay wadan karto. waxaa sidoo kale ay qabaan in tiknoolajiyadani la ogaado khasaaraha ay keeni karto ka hor inta aanan adduunka si guud looga isticmaalin. waxaa la aaminsan yahay in tiknoolajiyadani carruurta yaryarka ah iyo dumarka uurka leh ay aad halis weyn ugu tahay. tiknoolajiyadani 5G-gu maadaama ay xoog badan tahay, xawaaraheeduna uu aad u dheereeyo, waxaa sidoo kale xoog badan radiation-ka ay bixinayso. waxaa gebi ahaanba xaafadaha iyo 10 mitir kadibba sida nalalka jidadka oo kale waxaa lagu dhejin doonaa isteeshanada 5G-ga. tanina nolosha bani'aadamku waxay u tahay mid halis aad u weyn ah. dowladaha waaweyn sida Shiinaha, Jabbaan, Koonfur Kuuriya dadaalkooda 5G-gu waa mid xooli ah marka loo eego Maraykanka. sababaha ugu waaweyn ee isugu dayay in shirkadda telefoonada Hawaii uu u xiro mid ka mid ah waa tiknoolajiyadani 5G-ga. waxaa sidoo kale jira dad badan oo tiknoolajiyadan u arka fikrad iyo qorshe lala doonayo jiilka cusub in caqiidadooda iyo fakarka noloshooda wax badan looga bedelo. qaybo badan oo wadamada Yurub ka mid ah waxaa laga sameeyay protesto looga soo horjeego tiknoolajiyadani 5G-ga. dadka badankooda halku-dhigada ay wateen waxaa ku qorneed ma doonayno radiation iyo shucaac nolosheena khatar gelin karta. sida dhabta tiknoolajiyadani 5G-gu ma jirta baaris xoog badan oo cilmiyan lagu sameeyay khasaaraha ay wadato. sidaas darteed ayaa dowladda Belgium-ku waxa ay ka baxday heshiiskii tiknoolajiyadani ay la gashay. waxauna wasiirka deegaanka ee dowladda Belgium uu yiri bas isteeshanada 5G-ga radiation-ka ka baxa inta uu la egyahay lama qiyaasi karo. sidaas darteed caqligal ma aha xawaaraha internetka dartiisa in dadka noloshooda khatar aan gelino.
sidaas oo kale ayaa dadka qaybo badan oo ka mid ah teknoolojiyadan ay ugu arkaan mid nolosha iyo jiritaanka bani'aadamka halis weyn ku ah. Si kooban waxaa la qorsheynayaa 2025 in guud ahaan dunida teknoolojiyadan si official loogu baahiyo dunida guud ahaan, balse maadaama hadda cudurka koronaha darteeda dib u dhac u yimid ugu badnaan muddo 6 ilaa 8 sano gudaheed, waxaa la arki doonaa teknoolojiyo cusub oo horay aanan loo arag. Teknoolojiyadani marka saameynteeda caafimaadka laga soo tago, waxaa sidoo kale ay wataan dhibaatooyin kale oo ah in qofka macluumaadka iyo sirtiisa si degdeg ah lagu ogaado, maadaama wax walba sakan gudaheeda la heli karo. sidaas oo kale maadaama caafimaadka iyo kombiyuutarada hosbitaalada iyo wax walba teknoolojiyadani ay ku salaysnaan doonaan, waxaa suuragal ah qofka kombiyuutarada hosbitaalka in uu jebiyo, kadibna waxaa suurtagali karta in qof bani'aadam ah ama bukaanka hab online ah in loo dilo. dadka maanta aad ay ugu adag tahay inay fahmaan in teknoolojiyada heerkani ay gaari karto in hab online ah la isku toogto, balse waxaa xaqiiq ku dhow inay noqdaan muuqaalada iyo filimaanta khiyaaliga ee mustaqbalka cilmiga dunida ay gaari doonto.